laakiin wuxuu sameeyey awood buu adeegsado uu soo jiiday kiyara gacanta ku soo dhigay atasha dadkana saas ku soo jiiday suldan seeraar model waxay kaga dhigtay waa halkii shumuriye fiidiyogani dagaal mu ahayn fiidiyogani caadi buu ahaa dagaalku ma jirin maxuu ku saabsanay fiidiyo caadi ah anu gurigay joogo gelin waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhalinyaradeenna reer muqdisho ee dhibtu ka soo gaadhay caweyskii habeen hore ee xeebta liida ay ku caweynayeen assalaamu calaykum asxaabta qaaliga soo dhawaada baad leenahay daafaha caalamka dunida meel kasta naga daawanaysaan waa walaalkiin mawlid halkan naga daawanaysaan waa mawlid media ku soo dhawaada muuqaalkeenan maanta oo aad u xiiso badan ha ka daalina waxaan idin leenahay shaashada ku soo dhawaada marka ugu horeysana haddaad nala joogtay waad mahadsantahay haddaanad nala joogin subscribe saar kambalaalkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya fiidiyowga soo gaadho aad baan idin salaamayna maanta waxaan ka hadlaynaa 3 mawduuc oo yar oo gaagaaban ama barnaamij yar oo dee aad loo xiisaynayo oo dadkuna ay wada daawanayaan barnaamijkaas maanta waxa weeyaan horta intaynaan barnaamijyada noo guda gelin waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhalinyaradeenna reer muqdisho ee dhibtu ka soo gaadhay caweyskii habeen hore ee xeebta liida ay ku caweynayeen qaraxii ka dhacay ilaahay baan horta u baryaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo intii ku dhimatay intii dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay oo caafimaad sareecana sii dee dowladda soomaaliyana waxaan leenahay dhalinyaradiiba waa lagu soo jeedaa oo waa loo indho gaara loo leeyahay dee cadowga dhalinyarada laynayana maaragtay waa in indho gaara loo yeesho sababtoo ah waddanka maalin walba waxaa ka dhaca qaraxyo dee maaragtay saas iyo si ka badanba dadka dhaawac u soo gaadhsiiya marka maxay tahay dhalinyaradii waa dhalinyaradii u bixi waddanka u soo kaciyey waddan walba waxa bedela waa dhalinyaro dhalinyaradii Soomaali haday saa u dhamaanayso waxaan leenahay wallahi rijo dee aad weyn ma qabno marka waxaan leenahay xukuumadana iyo madaxweyne Xasan Sheekh baa in arrinta wax gaar ah laga qabto inta haddaan halka kaga soo gudubno asxaabta qaaliga waxaan idin leenahay bal waxaan idinla soo daawanay asxaabta qaaliga waxaan idin leenahay fanaankii weynaa ee ilaahay weyne waaxida suldan seeraar ayaa showgii qarniga habeen hore ku qabtay dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi showyada eriyadii baan oran karnaa showguna wuxuu haddaba saameyn ku yeeshay dhalinyaradii showga joogtay oo mid kamid ah taageerayaashii suldan seeraar ayaa stage-ka soo fuulay kadib markuu stage-ka soo fuulay suldan seeraar buu dee la soo istaago oo aad garanaysaa marxabo iyo yaa kadib dadkan Kenyaatiga ee sanka waaweyn ee ilaaliya dee booligaarka reer Kenya iyo reer Nairobi si fiican baad garanaysaa ayaa kii yaraa la haaday haliga kii yaraa markuu la haaday ninkii suldan seeraar haddaba ma garanayo luuqaadii Kenyaatiga oo oranayay nakubenda ama day soo reebka yar ama iida laakiin wuxuu sameeyey awood buu adeegsado uu soo jiiday kii yaraa gacanta ku soo dhigay atasha dadkana saas ku soo jiiday suldan seeraar horta taa wuxuu ogyahay hadduu wiilka ka daba tagin in isaga laga daba tagay moogto waxaan ku waa shamsi team commentiye waxaan ku uri Soomaali halka looma daaro way necab yihiin waad ogtayno Bilal Bulshaawi ninka TikTok tacaanka ka ahaa maalin dhaweyd ku yar nimcana la cashugiisa ku yar soo dhuftay dee wixii ka raacday erkiisana waa kii raali gelin soo bixiyay markaas suldan seeraar ma taas uu ogaayay in social media la socdo aduu kii yara uu soo dhaweystay bal muuqaalkii waa kana nala soo daawada asxaabta qaaliga waxaan rajaynayaa muuqaalkii si fiican soo wada daawateen waana wax atashan oo maaragtay muxibo iyo kalgacal no wala Soomaaliduna saas wada jeclaataa fiicneed oo mar walba saas wada garab taagnaato haddaba showgii suldan seeraar saas ugu kala kacay dadkii dhali waxa aragtay waa loo kacay fiidiyowgii viral buu noqday TikTok meel walba wareegayso iyo YouTube oo ka soo warbaxaya marka waxa weeyaan suldan seeraarna ma ahan markii horeysay waxaan leenahay waxaan idin xasuusinaynaa dana channelka subscribe saar like ni fiidiyowga noo saar sidoo baa ku leenahay mar walba annaguna waxaanu diyaar u nahay fiidiyow ku raali geliyo ka farxiyeen ku soo gudbino adoo halkaaga fadhiyo ku soo dhigno social media marka asxaabta qaaliga waxa noqonaya qodobkeena ku xiga
gabdhihii caanka ahaa ee TikTok-ta caanka ka ahaa ee reer Muqdisho iftiin model iyo Sihaam Tahliil iyo qaar kaloo badan ayaa maxkamadda la soo istaajiyay horta haddaynu Soomaalinahay waxaynu ogeyn rag dilay oo dee maxkamadda soo istaajiyo ama qof dil geystay ama qof dembi geystay maxkamadda soo istaajiyo laakiin TikTokeriskii caanka ahaa ayaa hadda loo soo galay hooy isjira lafiyadiina yaa iftiin model baa markaa video ay lahayd baa maxkamadda looga shiday lagu yiri videogani muxuu ahaa iftiin model waxay kaga dhigtay waa halkii Shumuriye videogani dagaal muu ahay videogani caadi buu ahaa videogani dagaal su'aal kastoo la weydiiyay videogani caadi buu ahaa videogani dagaal buu ahaa bay kaga baxay marka bal iyadana waxa la filayay videogeedii inuu ilaa xalay soo laalaabinayay dagaalku ma jirin maxuu ku saabsanay video caadi ah anu gurigay joogo video aan caadi ahayn ma jiree muxuu ku saabsanay videoga muxuu ka hadlayay dagaal iyo waxaas dhan ma ka hadlin muxuu ka hadlayay video oo mar hore ahaa video muxuu ka hadlayay mar hore iyo mar dambe iyo midnaas kuma weydiin video halkan lagu soo bandhigay oo aad u aalaheed oo aad aragtay muxuu ku saabsanay video caadi isnab la iska duubaabis anu gurigay joogo le caadi maxaa u taqaan adiga dagaal iyo waxaas video aan ahayn waxaan ku weydiinaa su'aasheedu waxa waaye dhibta kaliya markaa hablahanaysa waxa weeye awal raggu yaa dil ay geystaan maxkamadda laga qirtaa laakiin xaliimooyinkii maxaa lala imanaya maxkamaddii videogoodii oo la shiday baa la leeyahay ma ahayn ba aniga videogaas gabadh kaloo gabdhaha ka mid ah waxay tiri anuu cajiin iyo waxaan doonay naalo banaankaana xafla iga soo siiyay dhakab waa lay qabtay wallahi reer Muqdisho gacbaadii tagaada halkadii ka saraawaya waxaan idin leeyahay soo dhawaada barnaamijyo badan oo xiisalaan idin soo wadnaa bal ma aragtay like-ta ku qabta subscribe-ta saara channelku waa channelkiina iyo soo dhaweeya waxaan ku wari dee waa ka ha laga dareemo in ma aragtay Soomaali ay gacanta saartay channelka oo ha dhaqdhaqaaq badan ha laga dareemo asxaabta qaaliga meeg wala joogtaanba waan idinku salaamaynaa nabiga nuur leh maxaa la oran jiray aad baan idin salaamaynaa kaliya laab dhac